Aku kabadowga abaarta maareeyo kheyraadka dabiiciga waa bato muhiim ah guud ahaan shacabweynaha reer Koonfur Galbeed walibana wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya geedka magaalada Baydhabo tababar aan ka furtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka magaalada Baydhabo tababarkan oo soo dareeri doona muddo 5 maalin oo bal ka barado doona maareeyo kheyraadka dabiiciga dalka walibana furitaanka tababarkan wuxuu qayb galay gudoomiyaha degmada Baydhabo agaasimaha guud ee wasaaradda bay'ada iyo wasiirka bay'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isaaqfana agaasimaha guud ee wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya yan koreenti faahfaahin ku bi waryaabo la ka barado doona muddo 5 maalin oo soo dareer tababarka sida markaasayti dadka lambar faday aqoonta la xiriirta maareynta kheyraadka dabiiciga oo runtii noo kaalmayaas hay'adda ADRA xafiiska Baydhabo wali runtii barnaamijkun faday intii faahfaahin yarsiin ku siiyay way wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Soomaaliya waajibaadka kumada oo runtii yabeek sidaas kuma taaytay iyadoo la fiiriyo in wala ku qabada wadankan kheyraadku silay sida markaasay lantay ilaa waan la maaray lahay kheyraadka marka dhowr noocyaan iska jara wali la tababar doonaha waan runtii ha ku qayb galeen ilaa 7 wasaaradood oo kuma deeyin wasaaradda biyo wasaaradda beero wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda macdanta iyo petroleumka caafimaadka ilaa iyo marka ururada bulshada rayidka wali kale kumada Mayla Rais Women Groupka gaar ahaan saasoo kale Mayla Rais shirkun wali kale nool roogaha dad markaasay runtii agaasimaha guud ee agaasinka deegaanka xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa inta ku qayb galahayti laakiin Mayla Rais lanaha wakiiladi saasoo kale Mayla Rais wali ujeedada tababarkun intiin dareer muddo 5 maalmood hal maalmood runtii dadka la baradoona qaab practical intiyo ha aragan waxyaabaha markaasayti iyo geedka iyo muddooyinkan bayoon dhigin doonaan Mayla Rais oo theory and dhigin doonaan in practical han aragan marka ujeedkan ka muhiimsan iyo Mayla Rais wala runtii farxadneen aha in wasaaradii lanka tirgalina xaadiran gudoomiyaha degmada Baydhabo mudane Xasan Maalan Axmed Bikola oo madala furitaanka tababarku hadalaya wuxuu ku qayb galayaasha kala dardaarmay intii ku faa'iideysan muddo tababarku uu sadarada wala kale buu baasti bariis wala soo wal jarba marka uu wadaaba miskiin baas beerlaan beerale in dhulkaan dhul beeraday yaani ma masjidadaas in la tabala taab sheelka dadaala kordhintii la dadaala yaani ma tala dakhliga la dadaala waa muhiim way yaani geeka dhulka kiikan dhulka faano karo يعني لنقول بالصومالي كلا تستهدي كلا يعني كفانو كرتو دول بيردا قبته بي مواشنيدي ما لا اسمه هاي مسكين بهاس سدبلود بعد ما هاي عارم وبيروا لكن كتحضر ولا فضل أبار هدي كويته إن دولة مقاسمة صوبست مسجد كيدد وزيرك وزارة البيئة دورجات دولة قبائل كونفور قلبات سوماليا مدني علي إسحاق عمر يسر رسمي أنفر توبركم وبنوسك هذا مهمة توبركم سنلي شعب كرر كونفور قلبدا ما ملك أمام ما ملك إن خيرات كدبيعة إلهي نسي إن كاسي أو ما يلهاي توبر كاس نسوا دون مدة شمبرة إن توبر كاس نكو فائدة يصير دون تان لما تين أنت هدانا شيء أو ميلون فديده ويبغى توبر كن توبر إيد مهم لينك أو توبر عصبه ويبواه إن جيك ني عصب إني ما يلقاه إنه كهذا النقاب كل ما ملفظي خيرات كدبيعة إلهي نسي رنتي قدوميها إيدن كده داير هذه أرنتي هذا عنين ولا يرى سيد دبك هذه إلهي إر المدير اللي ما يرى إن معمول ده إن خيرات كدبيعة والكست هرت ويبقى جراه هو بمعمول لعنا كذا ويبقى نكذا إن بعين أما ما يلقاه سيد الفضاي من نكذا من صعود القرآن runtii shay kasta ama wal kasta oo la sameeyo way baahantaa inay meel raay maamul lahaata inay hoggaan lahaata inay meel raay
qaab mas'uudaas lahaad haddii liin waan way banagdaas iska dhax dhumaas shaqadii dhan isku dhumaas walaaqi bako wada dhumayaan Faisal Dhaye Hussein, Radio Television Koonfur Galbeed, magaalada Baydhabo.